السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركلة سود وده أدي هذا وما سنتهين ما أنت واجمع وأنا أفرت بشة تضباط جولاي سنة كلبضة كون إيا شان يلا تنك جمعة ونكسنا يا ند الله هم وقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقه محيطها هاي وراق ذا كسو بحذي وزارة عدالة ده إلا دون يو إن شرعي لوغلا لابتو قار كمده dadka dhalashada Mareykanka qaatay ee Mareykanka ku nool haddii dambiyada qaar ay galaan oo sharcigooda ay ku wayn karaan arintaasi ayaa raba inaan idila socodsiiyo dambiyadu maxay yihiin arintan ay saameynaysaa sida cabsida loo bumbuuninayo wax ma u jiraan arimahaas oo idil ayaan idila wadaagayaa iyo sidoo kalena muuqaaladii ugu horeeyay oo laga helay xirada Trump ugu magacdaray alligator Alcatraz oo dadkii ugu horeeyay labadii maalmood ee la soo dhaafay la geynayay iyadoo waliba xildhibaano dimuqraadi ah oo baarlamaanka gobolka Florida ka tirsan ay tageen shalay goobta laakiin loo diiday inay galaan waxayna rabeen inay soo arkaan sida xaaladda caafimaad iyo midda nololeed ee xeradaasi ay tahay laakiin waa loo diiday inay galaan arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore soo maalmahan waxa si aad ah u soo baxayay waraaq ay soo saartay wasaaradda cadaaladda oo ay soo saartay 11kii bishii hore ee June waraaqdaasi waxa soo saaray ku-xigeenka xeeraraalyaha guud ee wasaaradda cadaaladda ninka la yiraahdo Brett Shumate waxana uu u diray qaybta civil divisionka amaba qaabilsan dacwadaha madaniga ah amar ayaa la siinayaa xeeraraalyaasha oo la leeyahay dadka dambiyadaasi lagu helo waa in sharcigooda laga laabto Mareykanka waxay isugu jiraan dad wadankan ku dhashay oo markii ay dhasheen citizen ah iyo dad wadankan u soo haajiray kadibna qaabab kala duwan ba ku yimaadaan markaas kadib dhalashada Mareykanka qaatay marka dadka dhalashada laga laabanayo waa dadka wadankan yimid isla markaana dhalashada qaatay haddii dambiyadan noocan oo kala ah lagu helo aad ayay u yar yihiin kiisaska 20kii sano ama ku dhawaad 30kii sano ay u dambeysay dadka dhalashada laga laabtay aad ayay u yar yihiin sababa waxa adag sharciga qabanaya qofka dhalashada haysta iyo sida sharciga loogala laaban karo marka maxaa kamid ah dambiyada haddii lagu helo dadkaasi ay qasab tahay in dhalashada laga laabanayo oo maamulka Trump ay hadda ay ku dhawaaqeen waxa kamid ah in qofku uu galo dambiyo madani ah waxa hadda dambiyadaasi inta badan dambiyada dadka sharciga loogala laaban karo waxa kamid ah in qofka lagu helo in dilal fara badan uu geysto xitaa meel ka baxsan Mareykanka ha ka geysto haddii uu rabo qofka inuu ka tirsan yahay ururadan gangiska hadda Minnesota kale waxaaba jiraba dhalinyaro Soomaali ah oo laga yaabo inay ku jiraan gangiska oo qaarkood la xiray amaba hore xabsi u soo maray Minnesota waxaan arkay labadii sano u dambeysay si aad ah ayaa loola dagaalamayay kooxaha gangiska oo FBI-da iyo ciidamada kala duwan ay ula dagaalamayeen waxa kamid ah dadka ku jira ururada ka ganacsada daroogada oo cartelka loo yaqaano waxa kamid ah arintan Soomaalida waa ay qusanaysaa dadka lagu helo Medicaid fraud hadda baaritaan ayaa Soomaali ku socdo gobolka Minnesota dad lacagahan caymiska caafimaadka oo dawladdu ay bixiso gobolada la siiyo oo looga faa'iideeyo dadka xanuunsan dadka cuuryaanka dadka baahiyaha gaarka qabo in aad lacagtaasi musuqmaasuqto waxyaabaha sharciga laga laaban karo ay ku jirtaa waxyaabahaasi ayaa sidoo kale kamid ah waxa kamid ah soo kale qofka inuu ammaanka qaranka Mareykanka uu qatar ku yahay hadda Trump markii uu yimid waxaan ogeyn in arday fara badan oo muslimiin ah oo qaarkood visa waxbarasho wadanka ku joogo oo majarkii Maxamuud Khaliil ee Falastiiniga uu kamid yahay 104 maalmood oo xirnaa hadda bishii dhamaata la soo daayay waxyaabaha lagu eedeynay waxa kamid ah inuu ammaanka qaranka uu qatar ku yahay siyaasadaha Mareykanka uu ka hor imaanayo waxaana just uu abaabulay mudaharaad lagu taageerayo Falastiiniyiinta oo jaamacadiisana uga dalbanayay in lacagaha ay siiso Israa'iil ay joojiso arimahaasi ayaa waxay yihiin waxyaabaha lagu haysto walow dawladdu markii dambe ay tiri markii green card-ka uu xareynayay ayaa lagu helay inuu been sheegay meelaha uu ka soo shaqeeyay waxyaabahaasi marka hadda dacwadiisu wali way socotaa laakiin banaanka ayuu joogaa waxa kamid ah hadda ninkan ku guuleystay doorashooyinkii primary-ga oo hordhac ahaa ee magaalada New York oo laga yaabo November marka doorashooyinka ay dhacaan inuu duqa magaalada noqdo magaalada New York oo ah ninkii ugu horeeyay muslima ninkan Zohran Mamdani ayaa la yiraahdaa waa 33 jir Uganda
Uganda ayuu ku dhashay laakiin waalidiintiis India ayay ka soo jeedaan. Trump ayaa maalin dhawato waxa uu soo qoray ninkaas waa in la xiraa, waa in dhalashada lagala laabtaa, waana in la masaafuriyaa. Walow isaguna uu ka jawaabay oo yiri arrintaasi ma ahan dimuqraadiyad in wadanka Mareykanka inay ka jirto. Marka dadkaas oo kale ayaa hadda ay bartilmaameedsanayaan ayaa loo soo qaadanaya. Marka dambiyada qofka sharciga loogala laaban karo wasaaradda cadaaladda waraaqdan ay soo saartay waxa ay leeyihiin hadda ay ku amrayaan xeer ilaaliyaashooda in kiisaska dadkaasi lagu helo in la dedejiyo in dhalashada lagala laabto. waxa kamid ah qofku inuu dambiyo dagaal hadda dad badan oo wadankan yimid wadamo kale ka soo tageen waxa laga yaabaa in baaritaan lagu sameeyo kadibna la ogaado wadamadooda inay dambiyo dagaal ay ka geysteen. waxa kamid ah hadda fraudka ayaa kamid ah in arinta musuqmaasuqa Minnesota waan ognahay hadda waxyaabaha ka jiray oo lacagihii caruurta loogu talagalay xilliga coronaviruska Soomaali badan ay ku lug lahayd la musuqmaasuqay. marka adigoo dhalasho lagu siiyay hadii musuqmaasuq baaxadiisu intaas la eg tahay lagugu helo macnaheedu waxay tahay dawladda hadii rabto dhalashada way kala laaban kartaa kadibna waa ay ku masaafurin kartaa oo wadankii aad asal ahaan ka timid ayaa lagu masaafurin karaa. marka taariikhda Mareykanka aad ayay u yar yihiin kiisaska noocan oo kala ah. hadda laga soo bilaabo sanadkii 1990 ilaa iyo 2017 xilligaasi oo Trump wadanka madaxweyne uu ka noqday kiisaska waxay ahaayeen wasaaradda cadaaladda loo soo wareejiyay ilaa iyo 300 oo kiis ayay ahaayeen. marka waa 27 sano gudahood. marka sanad kasta waxay noqonaysaa 11 kiis. walow hadda Trump la leeyahay xilligiisii hore madaxweyne ahaa kiisas 25 ilaa iyo 30 u dhaxeeya ayaa dad lagala laabtay dhalashada. sidoo kale sanadkii 2018 hay'adda dhinaca dhalashada u qaabilsan Mareykanka USCIS la yiraahdo 1600 oo kiis ayaa wasaaradda cadaaladda ay u gudbisay si dadkaasi loo maxkamadeeyo. qofka ma ahan in isla markiiba dhalashada lagala laabanayo, qofkaasi maxkamad ayaa la saaraya haddii lagu helo in uu u qalmo in dhalashada Mareykan lagala laabto oo waxyaabaha lagu eedeynayo lagu helo markaasi kadib ayaa dhalashada lagala laabanaya. sidoo kalena waxaa jirta in dadka argagixisanimada ayagana sidoo kale lagu helo qofkaasi wadan kale ayaa argagixisanimo uu ka geystay si marka Mareykanka looga hor istaago qofkaasi looma ogolaanayo inuu Mareykanka soo galo iyo sidoo kalena inuu ku safro hadii qofka lagu tuhmo argagixisanimo baasaboor Mareykan inuu ku safro oo wadamada kale ee caalamka uu ugu safro suuragal arintaasi ma noqonayso. marka qofku marka uu citizen noqdo ama qaxooti ku imaaw ama green card ku imaaw ama visa ku imaaw marka aad dhalashada qaadato Mareykanka baasaboorka waxaad xuquuq u yeelanaysaa inaad codayn karto isla markaana juuriga xirbeegtida maxkamadaha aad ka qayb gali karto iyo sidoo kalena security clearance in lagu siin karo qofkan in security clearance-gaasi la siin karo. marka waaxda USCIS waxay sheegeen in 10kii sano ee la soo dhaafay 8 milyan oo qof dad ku dhow ay noqdeen muwaadiniin Mareykan oo dhalashada Mareykanka la siiyay halka sidoo kalena sanadkii la soo dhaafay oo kaliya 818,500 oo qof ay qaateen dhalashada Mareykanka. California waxa la leeyahay 27% dadka ku nool waa dad wadanka dibadiisa ku dhashay. marka dadka soo galootiga ayaa ku badan. marka waxa ay leedahay wasaaradda cadaaladda qof kasta oo lagu helo in dambi dhalashada loogala laaban karo waxa ay wasaaraddu u gudbinaysaa qaybta civil divisionka oo arrimahaasi qaabilsan dacwadaha madaniga kadibna qaybtaasi ayaa go'aan ka gaaraysa in qofkaasi kiiskiisa horay loo sii wado isla markaana la maxkamadeeyo. dadka sidoo kalena dhalashada lagala laaban karo waxa kamid ah dambiyada hadii lagu helo qofku inuu jirdil geystay ku xadgudub xuquuqda aadanaha iyo sidoo kalena sidaan idin sheegay arrimaha gaangiska iyo dambiyo kale inuu wadankan Mareykanka oo waaweyn oo felony ah uu ka geystay. sidoo kale dadka lagu helo in ay musuqmaasuqeen Paycheck Protection Program oo BB loanka lacagaha la siiyo ganacsiyada yaryar qofkii lagu helo inuu isaguna oo musuqmaasuqay macnaha waxay tahay dhalashada Mareykanka waa lagala laaban karaa. arrimahaasi oo idil ayaa kamid ah marka waxyaabaha quseynaya. laakiin dadka Soomaaliyeed hal mid ayaan rabaa oo digniin ah inaan siiyo. dadka qaar waa laga yaabaa inay qalad u fahmaan laakiin qof ayaa Soomaaliya jooga ku soo wacay qofkan ma taqaanid waxa uu ku leeyahay ilmo ayaa iga baahan ama qof ayaa iga xanuunsan walaalow i caawi. marka asal ahaan qofkaasi ma taqaanid Soomaaliyan waan ognahay ururo argagixisa ayaa ka jira. marka qof aad la ogeyn hadii aad lacag u dirto arintaasi saameyn ayay kugu yeelan kartaa. xitaa hadii ehelkaada yahay aqoon dheeraadana aadan u lahayn waxa muhiim ah waalidiinta inaa wacdo ama
dad kale oo qofkaasi yaqaan oo tiraado war qofkaasi hebel ayaa ila soo xiriiree bal ka warrama xaaladiisa oo horta aad ogaato qofkaasi waxa uu yahay lacag $5 ama $10 ama $20 ama $50 ama $100 oo aad dirto ayaad xabsina ku geli kartaa isla markaana sharcigaada aad ku wayn kartaa anigu kuma lihi qof masaakiin oo walaalka ah oo baahanaha caawinin laakiin muhiimaddu waxay tahay in aad ogaato qofkaasi lacagta aad u dirayso ma yahay qof nadiif ah oo hadhowdii lacagtaasi aad u dirtay aysan adiga raad dambe kugu yeelanayn dad fara badan waxay dhihi doonaan cilmi dadka masaakiinta in la caawiyo ayuu ka soo horjeedaa muhiimaddu taas ma ahan waad caawin kartaa laakiin muhiimaddu waxay tahay qofka aad caawinayso xitaa haddii uu ehelkaada yahay inaad hubiso ayuu kaaga baahan yahay dad fara badan ayaa arrintaasi hore ugu dhacday oo arrintaasi lagu xiray sharcigaadana sidoo kale aad ku weyn kartaa xabsi muddo dheera aad ku qaadan kartaa arrintaasi waa arrin muhiima oo loo baahan yahay dadku inay ogaadaan dad Soomaaliya oo ay ku dhacdayna Mareykanka waa ay joogaan sidoo kale dadka TikTok-ga barnaamijyadan cilmaamadka iyo waxyaabahaasi ciyaara qof adiguna Soomaaliya ama meel kale joogo haddii aad lacag u dirto arrintaas sidoo kale saameyn ayay kugu yeelan kartaa qofkaasina aadan ogeyn waxa uu yahay waxaan ognahay hadda waad arkaysaan Jarmalka waxyaabaha ka socda Kabtan Ayuub iyo kan Yacquub la leeyahay waxyaabaha lagu soo eedeeyay in kasoo ay u muuqdaan intooda badan inay been abuur yihiin waa ay dhici kartaa marka qofku waxa muhiim ah lacagta meesha aad ku dirayso inaad iska hubiso arrintaasi ayaan dadka Soomaalida aan kula dardaarmaya wayna dhici kartaa sidoo kale arrintaasi inay saameyn ay mustaqbalka ay kugu yeelato marka arrintaasi muhiimka ayaan rabay inaan idin la wadaago xaradii Alligator Alcatraz oo Trump talaadadii uu furay dadkii ugu horeeyay ayaa la geeyay sawiradan aad arkaysaan basaskan ciidamada xuduudda ee CBP-ga ay leeyihiin oo sii galaya ayaa la arkayay shalay dadkan waad arkaysaan iyagana ciidamo labana ay garbaha ka hayaan midna uu gadaal ka socdo midna uu hor socdo oo maxaabiista isla markaana goobta la geeyay sidoo kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka gobolka Florida oo dimuqraadi ayaa shalay tagay xerada horteeda waa kuwan iyagoo taagan laakiin waa loo diiday inay galaan waxay rabeen inay ogaadaan meesha maadaama biyo ay ku hareeraysan yihiin waa sidee xaaladda caafimaad kaneeco miyaa ka jirta nadaafadeedu waa sidee xitaa waxaa la arkayay roob da'ay qaybo ka mid ah biyo ayaa soo galay meelaha la dhisay oo sariiraha hoostooda biyo ayaa lagu arkayay cuntada waa sidee waxay rabeen inay soo ogaadaan laakiin waa loo diiday inay galaan oo waxaa la yidhi la idiima ogolo inaad gudaha aad u gashaan arrintaasina sidoo kale waan rabay inaad ila socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin leh sidaa iyo nabadgelyo